السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتي وادي سلام هيا وحنا يدكو سلام يا سلامة إسلامك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سودو هذا شرقرية عدلدن قارسية بيش والبا يميل بكتورة رنبت إيا نولل ميل والبا الدوية كي قسو كنتهين وأواسك تقبلوها فرحات كن نولادا رين كن نولادا waxaad tihiin dad dalkooda jecel baad tihiin markastoon bartan soo fariisto waxaan idinku yiraahdaa waanu guuleysanaynaa waxaanu ka guuleysanaynaa cadawga duulaanka ku ah dalkeena Soomaaliya dalka Soomaaliya waanu wada leenahay annaga kuwa mucaaradka daleyda ah iyo qof walba oo muwaadin Soomaaliyeed dalkan waa leeyahay laakiin waanu kala baxnay qaarna daleyda oo daleyda ah waxay u shaqeynayaan shisheeye qaarna si mutadabacnimo ah yay dalkooda ugu shaqeynayaan reenabad iyo nolol oo gabar iyo wiil aabe iyo hooyo abti iyo eedo adeer iyo garaysaaye muwaadiniinta Soomaaliya ka tirsan waxay niyadoodii iyo qalbigooda gashteen in dalkooda si mutadabacnimo ah ugu shaqeeyaan una jeclaadaan wayna sii jeclaan doonaan insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo soo dhawaada dhamaantiin sheer gareey cadaladan gaarsiiya beej wal mooryaanta iyo daleyda iyo shisheeye u shaqeydka ragga iyo dumarka shisheeyaha u shaqeeyo social media guri bay ka dhaxdhisteen way dhax fadhiyaan boqol jeer baa waxaan ku celceliyoon iri anoo duqbilow ah iyo reenabad iyo nolol muwaadiniinta reenabad iyo nolol ma dhex joogaan social media wala way soo galaan oo wax macquul gal ah oo dalkooda iyo dadkooda ku taageerayaan ayay u soo galaan baan laakiin mooryaantu iyo dalay waa dhex taaganta habeen iyo maalin social media soo dhawaada aadiyaad shalay live baan ku jiray وداونيسين warbixin baan idin siiyay warbixintii markaan idin siiyay 2 saac kadib warbixintii oo sideedii ah ayaa soo baxday waa maxay warbixintan idin siiyay waxay ahayd oo idin sheegay in ra'iisul wasaaraha hadda xilkiisa la dhimay Rooble qabiiliste in xilkiisa la dhimay doorashadii uu federaalka ku matali lahaana laga maarmay oo maamul goboleedyada dalka uu madaxweynaha green light u siiyay oo madaxweynaha yiri maamul goboleedow intaad u ordaysay soo ma aha inaad xildhibaanada aqalka hoose iyo aqalka sare adigu aad soo xishid mas'uuliyadda la wareeg amnigeeda la wareeg xildhibaan Buntland ka socdo oo federaalka ku matalayo oo aqoon leh oo lagu kalsoonaa karo soo dir ayuu madaxweynuhu ku yiri waxaan idinku yiri Rooble awoodii madaxweynaha u dhiibtay ee ahayd dawladda federaalka inuu ku matalo doorashadan waa kala wareegay baan idinku yiri waa laga maarmay inta markaan idin sheegay 2 saacadood markaan live ka sii maqnaa warqad wiifta oo duulayso yeeshanta maamul goboleed soo tuureen waxay qabsadeen shir oo zoomka ah waa la iskarbaashay waa la wada hadlay waa rag Soomaali oo gaal ku dhex jirin weeyo inkastoo qaar gaalada u shaqeeyaan waxay isku afgarteen inay war saxaafadeed soo saaraan warsaxaafadeedkaasi oo madaxweynaha Soomaaliya amarku soo saaray kaalmeerayo ayay soo saareen waxay yiraahdeen maalinta talaadada ah ee soo socoto weegan bilaaban doono oo taariikhdu tahay 21 September garawaan isugu imaanaynaa shanta maamul goboleed ninka la yiraahdo Rooble la helow uma baahnin bay yiraahdeen
وفهمتي بمنين وأنت هردي فسري درات مركز لايف كجري وحاردي شيء روبل إن مدحوينها هو كي شيء دور الشذا وكم ترى الدولة الفدرال كما دام مدحوينه ويهي مشرح وإن ما كان كقيليين ويرهدين هذا مشرح سيد بهاش هو ماموري أيو يرني كان مشرح أهينه بالدولة الفدرال كا قيبت هذا نكر يقوم الدلوير مدحوينها مركو أرك خيانة هذا نكر وط يجري وكم مرم ما بالقبل هذا ويديكو بل وح قمرو قيمة بلا صار وين دقيستين سورك سبي وصار ورقد أنك مواطنين صوماليين وشعب كي صوماليين إنك فرعيش موريانتي بره بلشدة يدع يدلك يقحوتي للنقطة تاجيريسي ماذا قبصدين رواق قيلي وحيري هذين كنت كجور قجة أجور يسوى قرين فرماجة كجور داري أجور أي يسوى قرين عبد الرحمن عبد الشكور كعلى عليو كل رئيس الوزراء أنا سكو قبيل كنهاي أيانو تاجرينا رئيس الوزراء أنا سكو قبيل كنهاي أيانو تاجرينا السوشيال ميديا هو تكو أركيسين وحي نحي أمضى الصوماليات كما قرصورين وأنا صوبتها إذين لياهي السوشيال ميديا أنا قبيل وما صوغلو إن قبيل كيغا كما تاجرو كما ردورين لكن waxaan ku taageeraa dawladnimada Soomaaliya institutionada Soomaaliya inoo dhisan yaa ku taageeraa waxaan ahay siyaasi analyst ah oo siyaasadda Soomaaliya meeshay aadaysa la socdo ayaan ahay baan idinku ana xaqiiq sidaan hadalka u dhigay ee reernabad iyo nololow idinku dhigay bay u dhacday waxba ma yisan garan marin leherow buul baan ka dhignay waana buul شركة أي سوي مارا يان قروي أحمد مذوبة يدني يا غورغور يا عبد العزيز لفتقرير يا علي جود لاوي لو ما مرتقادين روبله صوبته أسا كمي دهاندري بداش غران لو ما مرتقادين وحاجر مديرو المادير النهاية اسكجفن النهاية اللي يرادا دبراري اسك عرورته عياله او اسك بهدله حتى دري كوا أسا كحيجي ماشي كحيك سدارو وحو يهبا اللي قريب ورقدي أنا وآخرسناي ويقول لي ويدين فسيرة يا سيد أقول فسيرة أنا ورقد أنا بآخرسناي الناي صارين مدحدي مامول قبلات يدا معها مامول كبودلاد ما مدحدي مامول قبلات يدا ويدل ورقدي صارين بآخرسنين إني عروري عبد الرحمن كاير كوع ياري ولا ريال إذيكم معها أنا ولي 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 هالصعد والله شرا يا رجوا شريان أيضا روبلا وسنجوجين مدحدي مامول قبليديada ee shaarbaha waaweynaansida doqbirow waa shirayaan insha Allah haduu ilaahay inta markaa siyaasadii kaga tago in ku fashilnay leherow ee ku bahadilay leherow iyo ilmaadiradiisa qabiilaysan ee uu wato markaa inta ku bahdilneen ku tusnay awoodoodii halka ku xiranta yaa rabaa arinta maanta taagnayd eraka soo dhawaada موريان look my eyes وكابتن فيليب وي إندهيجا فيري موريان صوفي راني صوفي عن إندهيجا وفيري سوشيال ميديا يا موريان توحي لأرديسي جبر با لعف دوبتي رئيس الوزراء قبيليسن يا لايف سوفريست gabar baan cadaalad u raadinayaa gabadhan maqan la sheegayo maamadii dhashay baa soo fariisatay idaacad warqad bay akhrisay cadaalad baan doonayaa gabadhayda maqan madaxweynaha waa in laga saaraa filada wadu jeedeen baan u maleynaya wixii socday ee maalmaha socday wad arkaysan waxay baraha bulshada soo galiyeen warqad feeg ah oo leeyihiin maxkamadda ciidamada qalabka sido ya dacwad aqbash oo eedeynayaan rawaahul bagaraysaay Fahad Yaasin wala dheer wala iyo bille inuu la dheeraya wala iyo bille qabiil laan dheeran maqli jirnay wala iyo bille inuu yarka yar laan dheeraya laan dheera dhalay oo kaligi laan dheera isu ah oo ka wada la dheeraysan qabaylada laan dheerayaasha sheegtay
والله إنه فهد ياسين يعني دقيشت روبله ودقدقي سو سياسية لكنه والله وآذان دقيش موادنا ندم بمحكمة كسو أوجين بي إذا عدها public opinion موريانتو دعوة وسو أوجين الدوية كنا لهاي جويا أن جوجنو دتك الدجن globalization لقت إيه دتك كنا وده سكور هيو آلة ده سكور الداورين قف كل يري هذا ودنبيله ودنبي بالجوسو أوجي اللي يري هذا وحالة هاد ذلك يوسن كبحين هذا الكادو دقيست قف كودنبيله مركي اللي يري هذا أما هو suspect until proof guilt وsuspect اللي يري هذا وحالة يري هذا قف كودنبيله باسبوركا هلاقا قاعدة سي ودلك وقبحين هادو دلك كم قيهينه وحالة يري هذا سيدا ودخسيها بدن دلك كسوقل دقيست هذا الكلام وفاتين سمع فهد ياسين او سفركو بقرا او تركيا كسو دوفاي او جيبوتي ترانسات كو يا سردونك جيبوتي iyo dawladda Djibouti diyaaradii uu saarnaa qabsatay dhaqab muwaadin Soomaaliyeed weey oo diblomaasi ah oo la taliyaha amniga madaxweynaha Soomaaliya amniga madaxweynaha kala taliya weey diyaaradii bi kala soo dageen way xanibeen eelboorka ku xanibeen waa laga warheero dawladdu ka warheeso wad la socotaan Djibouti markii arintii ay dawladdanada ka warheshay media loo soo gudbiyay odagan antataqa uu dhimanaya hadda kulli markuu dhintana naartu gali doona insha Allah haduu ilaa yiraahdo waa ahlu naar weeye umada reer Djibouti dhameeyay waa ahlu naar naartu gali subxaanu bargeel markuu dhinto uu bakhtiyade uu bakhtin uu dhinto naartu gali insha Allah haduu ilaa yiraahdo sababtoo ninka dhiig muslim galo dad islaam laayo dad muwaadiniin Soomaaliyeed baabi'iyo cunaqabateen inay dhintaan gaajo darteed go'aansado waa ahlu naar weey inta u dhaafi maayo anigu siyaasadii suure warartay baan idin sheegi markay dawladda ka warheshay warbixintii idaacadaha loo soo gudbiyay yaa wasiirka arrimaha dibadda waa lagu la xisaabtamay maalimaha kamide ninka Djibouti wasaaradda arrimaha jogow maalin waa lagu la xisaabtamay la soco one day buuga waa ku rogayna adigana yaa wuxuu yiri diyaaradda cilad farsamo haysato diyaaradda cilad farsamo ayaa haysato yiri markay arintu dhab noqotay oo xaqiiq noqotay idaacadihii dib ugu soo noqday wuxuu yiri diyaaradii cilad farsamo haysato rakaabkii saaraa iyo diyaaradiiba waxaan u dirnay oo dib ugu noqotay Turki waa 5 hour diyaaradda muqdishona waa less than 1 hour and a half weeyaan diyaaradda cilad haysato xumaatay 6 saacadood loogu diri meesha u socoto final destination ka waa saacad iyo bare dadku waa ka aqli badan yihiin cawaano waa lagu ogyahay lala socdaa Djibouti in dawladda Soomaaliya ay curyaaminaysay waa la socdaa Ismaaciil Cumar Geelle oo qabaa'il iyo qabiil iyo irraysim iyo waxa loo joogin dabada ku hayo inay ikraan arinteeda lugta la galayso waa la socdaa iyadana tii way ku fashilmeen halka markaa Fahad Yaasin iyo diyaaradii halka aan dhigo yaa rabaa ninkii indhaha guduudka ahaa Reble Helow iyo Cabdiraxmaan Badagate iyo mooriyaantii Muqdisho ka dhawaaqaysay iyo islaantii buugga ka akhrinaysay qoraalka warqadaha ka akhrinaysay lahaayeen Fahad Yaasin baa gabadheena ku tuunsanahay maanta markay idaacadaha intay soo wada fariisteen leeyihiin Fahad Yaasin dalka yuu soo gelin Fahad Yaasin Djibouti inaga qabo Fahad Yaasin Djibouti baa lagu xanibay Fahad Yaasin Djibouti baa lagu arqaladeeyay Fahad Yaasin dalka soo gali maayo ay leeyihiin aw cadaalad ay rabeen
إلا فهد واكا قبض كنتو مياني موريانتو أو عدالة دي قبضنا أي رادي ليين إلا فهد واكا يرهده ودنبيله محكمة دان ورقات كجين واتي لهايانه أو عدالة دو أي رادي ليين أوي عدالة دي أي رادي ليين أي لهايان قبر با إننا مغن وفهد ياسين ما قبضنا كنتو مينا أوي محاكا يرسيي مانتا فهد بان لغو حري جبوتي فهد دلك سوقلي مايو فهد وين دلك اللي عليا فهد وين مقرس هاد دي سيد بلو عليا what is going on ومدى الصوماليات ما أهم موريان ومدى مقدسة دقن ما أهم موريان ومدى الصوماليات الراس عسير إلا الراس كان بوري دقن ما أهم موريان مالين دويتون لايف كجرا وعاني دكوين موريانتو waxay jeceshahay in la buuqo la qayliyo guryaha dhalada ah ee muqdisho ka dhisan la dudumiyo si magaraysaay alwaxyadu ay fujistaan si qaylida iyo buuqa socoto uga faa'iideystaan ayay jecel yihiin baridu kiri moriyaantu dawladnimadana iyo dadka nidaamka yaqaana nidaamka jecel waxay jecel yihiin in wax walba calm deganaan la sameeyo si cadaalad ah oo xaq ah oo ummadoo dhan u simantoo la wada arkayo transparency ah lagu kala baxay jecel yihiin baa ku ri muwaadiniinta xalaasha Roble iyo Ismaaciil Cumar Geelle Jabuuti iyo Kenya inay duulaan dalkeena ku yihiin cid walba waa ogtahay wax qarsoon ma aha hadalka dhageysta ninka la yiraahdo Roble markii howlgab laga dhigay ee la bahdilay doorashadiina laga wareejiyay ee uu ogaaday Fahad Yaasiin inuu soo galayo Muqdisho xogna hayo xogtaana ay lugta la gali doonto Roble iyo waxa Ismaaciil Cumar Geelle oo asaga ka waalay iyo groupkiisa wuxuu yiri Ismaaciil Cumar Geellow anoo nabad ah oo nabad qabo oo fiican oo loyalty u ah madaxweynahayga adaa Jabuuti igu tashkiiliyay xaqiiqda dhabta waa la hayaa codadka adaa igu tashkiiliyay inaan Kenya gacan saar la yeesho adaa igu tashkiiliyay inaan irir Soomaaliya wax isla nahay adaa igu yiri Kenya leeshii anigana waan ku baakaab gareen maanta way haysataa Ismaaciil Cumar Geellow uu ku yiri ninkii Fahad ahaa ayaa soo socday tarasadna ku ah Jabuuti ninka hadduu yimaadana waa la ii yaabaa buu yiri Roble Ismaaciil Cumar Geellow ninka tab kastiya qaab kasta uusan Muqdisho ku soo gali karin samee Ismaaciil waa samee waa ka xumahay laakiin diyaaradii waa noqotay diyaarad 3 garaysaa ee bas يا مقدسة تو اسطنبول ستريت وصو بحد او سو عقا دغان دونto saacadaha soo socdo shirki gudiga qaranka ee loogu talagalay inuu maanta dhaco 18 September waa dhacaya dhageysta dalka xogto dhan baa la socda sirdoonka Soomaaliyeed ayaa kula socda Roble kololka aad gashay ee ku calaacashay ee Jabuuti ku tirninka halay qabto la socda وانا لا soo bandhigi doona insha Allah si dalka loo badbaadiyo dhageysta dalka waxaan rabaa marka ummadda Soomaaliyeed ay dhageysanayso inaan macnaha ay isqabadsiiyaan oo aqligooda ka shaqeysiyaan baan doonayaa mooriyaanta kaarka gabadhan xoqonaysay ee lahayd gabadhan cadaalad baan u raadinaynaa ninkaasaana ku eedeynaynaa oranay maxaa maanta social media idaacadaha ula taagan yihiin ma soo gali kara Fahad illa Fahad hadduu eedeysanay yahay waa muwaadin Soomaaliyeed oo Soomaaliya u dhashay xaqna u leh Soomaaliya inuu joogo kuna noolaado cadaaladna ku helo xaq u leh weeye intuu yimaado Muqdisho waxa uu warbixin haya uu soo gudbiyo haddii eed loo soo jeediyana uu maxkamadaha iska difaaco maxay ku diidan yihiin mooriyaantu idinku isqabadsiiyay wad ku wareerteen laakiin ana idin fasiray dhageysto
siday tahay baana wax idinku sheegaya dhageysta sheergaray cadaalad reer nabadina laadiya gabadhan waa la dilay Allahu naxariisto ikraan la yiraahdo meel jilib u dhow ya gabadha lagu diray ma noolo gabadha la yiraahdo ikraan taali Allahu naxariisto cadaaladna way helaysaa gabadhan sirdoonka Soomaaliya darajo sare ayay ka gaartay wada shaqeyn waxay dhaxmartay sirdoonka Mareykanka CIA-da Ingiriiska MI6 macal magaraysa Carabaha wadamo badan oo caalam kamid ah sirdoonkoodii yay la macaamil la sameeyso gabar meel sare ka gaartay weeye sirdoonka shaqadiisa gabadhanna shaqada waxa keenay ninka la yiraahdo Sambalosh ninka la yiraahdo ayaa gabadha shaqada qoray heer kaana gaarsiiyay dhageysa dalka gabadha wala idinka qaraya Sambalosh idaacada wuxuu ka yiri gabadha abti baan u ahaa uma uusan ahayn xiriir ba ka wada dhaxay labadooda hadalkayga aad u dhageysid xiriir ayaa ka wada dhaxay gabadhanna Sambalosh keligii shirqoolka ma sameyn horeyna arinta waan uga hadlay gabadha waxa shirqoolay oo al-shabaab u dhiibay uguna talagalay gabadha in la dilo dowladana lagu nabo waa Djibouti iyo Kenya oo wada socdo iyo Ingiriiska dhageysa dalka Djibouti iyo Kenya iyo Ingiriiska oo wada socdo iyo Imaaraat oo wada shiray sirdoonkoodii oo la kaashaday taliyii hore sirdoonka qaranka oo uu qeyb ka yahay ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya ya gabadhan qaarijiyay waana siyaasad la maleegay kacdoon in lagu abuurana la doonayo Ilaahay baa naga badbaadiyay gabadha waxay xiriir jacayl ah ama shukaasi waxa uu taqaaniinba uu kala dhaxay ninka la yiraahdo Sambalosh ninka la yiraahdo ee taliyii hore ee sirdoonka qaranka ah yay isugu dhawaayeen dad dhawaan oo guur ku ballameen waa la soo bandhigay arintan ma wax uu duqbilow iska sameeysanaya ma guur ku ballameen oo inuu magaraysaa guursadaba magaraysaa xaaladu qarka u saaray oo aamintay ninka la yiraahdo Sambalosh waana xaqiiq dhabe weyn shirqoolka gabadha meesha dawladda ay dagareed waxa ka saaray ninka la yiraahdo Sambalosh xildhibaanka la yiraahdo Dhuxulow iyo magaraysaa rag kale oo aad u tarestigareysay oo ganacsatayaal ah yaa gabadha ka bixiyay meeshan hadalkayga aad u dhageysto yaa ka saaray areadan gabadhana Ingiriiska yay 8 bilood ku maqnayd soo noqodkay hadda soo noqotay 8 bilood markay Ingiriis ku maqnayd hadda dib u soo noqotay ee hooyadeed leedahay taliyaha u yeeray waa beente taliyaha u yeeray ma aha taliya Faad Yaasin ee taliyaha u yeeray waa taliyii hore ee sirdoonka qaranka ee Sambalosh gabadha waxay ku jirtay qabanqaabo aroosay ku jirtay hadda marka la qaarijirayo qabanqaabo aroosay ku jirtay oo inay aroosaan ninka la yiraahdo Sambalosh iyo qabanqaabo ugu jirto gabar gurigeedii iyo howlaheedii iyo decorationkeeda aruursanayso oo howsheeda ku jirtay waxaana magaalada ka bixiyay oo isu dhiibay gabadha ninka la yiraahdo Sambalosh oo telefoonka magaraysaa ku hagayo oo ka soo saaray meel walba xogna ay siiraysi iyo Dhuxulow xildhibaan Dhuxulow ninka murursade iyo rag kale oo ganacsatayaal because Dhuxulow waa ganacsada weeye hadalkayga aad u dhageyst iyo rag kale oo ganacsatayaal yaa gabadha shirqoolay oo al-shabaab gacanta u galay kaamarooyinkii CCTV baa la hayaa cododkii baa la hayaa anteenooyinkii bay sirdoonka dib ugu noqdeen inta waayeen yaro hordhacaan idinka dhacay weey yaa la hayaa dhageyst markii rooble lagala tashanay arintan cododkoodii baa la hayaa oo sirdoonka dhageysanayeen oo la leeyahay waliba rooble naxariistay gashay uu leeyahay waan ku ogahay naxariistay gashay uu leeyahay warday naga daay dhigislaan ha galina soo dhaxay yaad maqli doontaan dhawaan insha Allah duulayna oo rag ku dhiiranayaan oo ku tashanayaan oo qadadka isugu jiraan iyo wasaabyada iyo codadka isugu jiraan iyo baabuurkii dhiibay iyo baabuurkii ka bixiyay magaalada wixii dhan baa xogtoo dhan ba gacanta lagu hayaa
ninkii gabadha daraaf gareeyay ee loo soo diray baa xiran oo sirdoonka u xiran oo ilaa hadda inay qaarijiyaan isku day ragga la qaarijin waayo waana sababtay u diidan yihiin Fahad Yaasiin inuu soo galo magaalada Muqdisho u diidanayeen xogtan iyo xog kale oon aniga haynin oo sirdoonka hayaan in la soo bandhigo ummadda aragto oo dad badan oo maanta u doodaya gabadha oranayo la qabiil baan nahay cadaalad baan u raadinay oranayo inay fashilmayaan yaa la ogyahay waana sababta u diidayaan dhageysta dalka kiiskeeda cadaalad bay heli xabad baa loo soo qaban inta cadaaladana la marin inta nin ay u tashatay inta nin ay gaariga saartay inta nin ay abtiya adeer u aamintay jaceyl ay isu dhiibtay dumar ahaan Sambalo show diyaar daadar macaan adoo baby macaanto baby sarir baa gadareeda ku hayo oo gabadha ku aamintay insha Allah aduna dhawaan waa la maqlay hadda isdiyaar waa soogtahay hadalka gabadhan ku aamintana waa hadalkaad horay u tiri waa ka aargooreynaa farmaajo ko sheekadii qalbi dhagax iyo daba socota hawshan laakiin fashilantay ilaahay baa fashilay ilaahaygi weynaa qaadir raxmaanka ah ee Soomaaliya jeclaa ee ummadda Soomaaliyeed dhibaatada ku jirta ka saaray yaa mooryaanta fashilay Fahad maanta waad u diideen inuu soo galo Muqdisho Ismaaciil Umar Geelle iyo Jabuuti ku dalbateen laakiin waa soo galayaa ummadii Soomaaliyeed yaabto hal su'aal bay isweydiinaysa war mooryaanta waa tay oranayeen ninkan gabar baan ku eedeynay cadaalad baan raadinaynaa haddana waa la celiyay yu soo galin dalka ay ku hayaan waa maxay dadkii aan waxba ogeyn ee xaaladda la socod hadda ay wax dareemeen yaad gaadaysaan yaad qalad ka dhaadhicinaysaan isku soo duduub arrintu waa sidaas gabadha ninkanay aroos la gal rabtay baa dilay Sambalo la yiraahdo anigu hadalka ma qarnay ma ka leedahay Sambalo oo gabadhu aamintay oo iskuul u diray ku yaala Ingiriis ku yaala asaga u diray kontonka kun ee dollar xaso dhan baa la soo bandhigay oo idii sheegina konton kun oo dollar yaa jaamacad ku taala Ingiriiska laga bixinay dawladana ka bixin oo sawirkeen ninka bixinayay ee ugu talagalay hoosha watay qorshaha watay Sambalo dawaan ku ognahay waa la socda aadiyaad sii gali maayo dhiidkilkaas faraha badan anigu sii faragashan maayo laakiin xaqiiqdu waxay tahay in dhuxulow xilibaan dhuxulow iyo ninka la yiraahdo Sambalo iyo niman ganacsatayaala iyo ra'iisul wasaaraha hadda buulka laga dhigay xilkii laga xayuubiyay inay gabadha lugta la soo galayso oo qorshaha ay wax ka ogaayeen dilka gabadhan waa la hayaa cadeynteedii waa la soo bandhigayaa insha Allah haduu ilaahay reenabad iyo nolol waan guuleysanay xaq ilaahay baa feeraha ku dhufaray ayagu waxay isku dayeen inay BBC geystaan Farxaan Jimcaale xuudka mikrofoonka ku hubaysan inay BBC uu ka taageero social media ay ka dhawaaqaan oo habeen iyo maalin dhex taagnaadaan niyadda ummadda ka dilaan oo magaraysaa kuwooda siyaasadda sheeganayay oo Cabdiraxmaan Badagata ugu horeeyay iyo madaxweynayaashii isku qabiilka ahaa ee qabyaaladda u xuusubtay inay dadka inta ayaga u nacamleysay u mareynaya shacabka Soomaaliyeed waa 20 milyan codkooda annaga ku hadlayno wareega dalkanaga sheegayno ficnaanta dawladdanada sheegayno muwaadiniinta Soomaaliyeed hadii lagu xadgudbana xaqooda banaanka soo dhigay xaqooda banaanka soo bandhigay inta markaan inta dhigo habartii gabadha dhashay ee warqadda ka akhrinaysa qoraalada meedacad maxay u maaweys ila Fahad habaray islaaray maamoy waad eedeysay maanta waad u jeedaa wixii dhacayay maxaad u oran weysay ninkaan uu eedeysay yahay dalka laga ma celin karo waanu soo galaa maxaad u oran weysay haday gabar ka maqan tahay oo xogteeda dooraysid maxaad taa idaacadda timaad warqadaad u akhrin weysay oo u oran weysay maamoy gabar baa iga maqan ninkaana waan ku tuhmayaa xog rasmina waan doonayaa mooryaaray aamusa oo ha soo gala ninkan maxaad u oran weysay shibatin madaxweynaha baxo waxa weeye maama sharciga waa inaad u hoggaansataa haddaa tahay dhibane gabadheedii maqan tahay dhibaato ay haysato cadaaladda dalka waa inaad ku kalsoonataa gabadhaada xaqeeda haddaad siyaasadaysid oo ragga siyaasadda isku haya qayb ka mida aad dabada gelisid geeskaa lagugu dhufanaya adigana isleen habar siyaasadaysan ayaa tahay siyaasadana naxariis male rag baa lagu dilaa qiimana bam lagu qarxiyo lagu dhuftay
هلب كودة جرم سياسة دا نوعها مواد النقو مامو نستيح يا عدالة دوري يسنقو مامو كبح سياسة دا إرم مهد معني قال لي هذا ما حصلت يا عبد الرحمن عبسكور الغداء كوسو قرياني قبيليسن ورغدا كاخر اللي يقول لي هي مدحتويد هو انا ما قال كرت مدحتويد دولد با كجرت رال نقد waa yara xaraaqeen ciidan dowladeed baa jooga madaxtooyada gabadha cadaalad baa loo hir ikraan annaga ay nala dhalatay annagaana kaaga naxariis badan adiga dhalay warqada akhrinayo warqada beenta akhrinayo wallahi ana kaaga naxariis badan habeenkii 100 jeer bay qalbigayga iyo niyadeeda ku soo dhacdaa oo dhax gabadha Soomaaliyeed walaashay kaleeteen dhali kare aniga ila dhalan karto waa inay siyaasadda ka madax banaanaataa yaan habeen iyo maal iraada macdallaahi inaad dhashay dadka shaki baa ka wada galay inaad adigu dhashay oo hooyo gabar dhashay inaad tahay wallaahi shaki baa dadka Soomaaliyeed oo dhan shaki baa galay qof walba isweydiinaya habartan indha ku shamarsan warqada maha salaad iyo Cabdiraxmaan Cabskugu soo dhiibayaan ma run baa inay 9 bilood caloosha ku waday gabadhan xudunteeda laga jaray ma dhabba waa la isweydiinaya sababtu qaabkaad wada ha filada la gala 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 yaa kugu dambaabin hooyo noqon naxariis la noqo hooyo gabadheeda raadsanaysa noqo gabar cadaalad u doonaysa gabadheeda noqo wad ogtahay wadna la socotaa wadna ogtahay in uu guursanayo gabadhaada sanbalowsho wad la socotaa أنا قرعينا يدي إن سنبلوش يا جماعة إسقورسريين عروس كودي لو جود الدري أو كويمد عندنا ونوج عندنا ودكتور هذه يعني أسانة الدري كور أسانة جماعة هذه الشرقوري حكت الله هيور دنا تاسي شيء جيسا هذه يعني ويقول اسكتبروها مواد الصومالية ضد كل عليو صومالي ودم بيسامين يساوي هذا مواد الصوماليين والدبلوماسي أو باسبور دبلوماسي صومالي أوتو إن دل كله إن دل كنا هين وكحد جدبو وددا أو استاجو صومالي أو دم بيسامين يسا هداد ما أنت كفر حديد مدن فهد ياسين إن إسماعيل كان أهل النار لمرة يا إلى هين النار تا هكفوا جيه وددا أو استاجي بالرمركو أذو دبلوماسي وددا كو استاجو إني الصومالي كودي ديسات دونيسا لكن ما تمركز كفر على الدبلوماسي صوماليين ودada loo istaago ogow bari adnay ku sugayso oo Soomaali aad sugayso cid ku istaagina male system keen dawladnimo ina protect gareen laha ina ilaalin laha Soomaali hadaan nahay halkaas ku burburaya siyaasadda gudaha inaga dhaxayso annaga aan isbursana hadaan doono laakiin Djibouti waa dal kale Ethiopia waa dal kale Kenya waa dal kale Soomaali baan nahay diblomaasiga Soomaaliga ama mucaarad ha ahaado ama muxaafada ahaado Xasan Sheekh Maxamuud iyo Cabdiraxmaan oo hadda ku dhaganahay oo aan dacayadeeyo siyaasadda arrimaha gudaha isku haysan wallahi Cabdiraxmaan hadii lagu xadgudbo oo dalan dalka ahayn uu ku xadgudbo ninka u horeeya ee dagaalamaya Cabdiraxmaan sharafkiisa iyo cizigiisa iyo cirdigiisa inaan lagu xadgudbin ninka u dagaalamaya waa Soomaaliga waa inta ogsooya wixii arrimaha gudaha inaga dhaxay waa arrimaha gudaha laakiin markay dal kale ay noqoto waa inaan Soomaalina nahay ogsoonna calanka buluuga naga dhaxay ogsoonna aad baa idin salaamay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh